madaxweynaha Soomaaliland ee xilka ka sii degaya Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo oo maanta kulan aan caadi ahayn isugu yeeray golihiisa wasiirada madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland taliyayaasha ciidamada hay'adaha madaxa banaan hanti dhowrka guud iyo xisaabiyaha guud ee qaranka madaxweynaha Soomaaliland ayaa kulankaasi waxa uu kula dardaarmay mas'uuliyiintaasi waxaana uu ugu baaqay in la ilaaliyo hantida qaranka xilligan oo lagu jiro kala guur sidoo kale madaxweyne Silaanyo ayaa uga mahad celiyay golihiisa wasiirada iyo mas'uuliyiinta kale waqtigii ay soo wada shaqeeyeen waxaana uu ugu baaqay inay la shaqeeyaan madaxweynaha cusub ee Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi waa kan afayeenka madaxtooyada Soomaaliland Xuseen Aadan Cigadeey oo faahfaahiyay kulankaasi wuxuu mas'uuliyiinta dawladda oo amray in xilligan kala wareega ah mas'uul walba uu diyaariyo wasaaradda ama hay'adda uu ka mas'uul yahay faylkeedii iyo malafkeedii oo dhamaystiran sidoo kale madaxweynuhu wuxuu si aad iyo aad u ah ugu la dardaarmay golaha wasiirada iyo hay'adaha kale madaxa banaan iyo taliyayaasha guud ee ciidamada in la ilaaliyo hantida qaranka muddada kala wareega ah si hantida qaranka loo ilaaliyo madaxweynuhu wuxuu faray in la soo buuxiyo form ay ku urursan tahay wixii shaqaale ka hawlgala wasaarad walba ama hay'ad walba wixii hanti ay qaranka uga mas'uul ahayd gaadiidka iyo dhammaanba mashaariicda dhamaaday ama kuwa socda in la soo buuxiyo oo maalinta axadda la keeno madaxweynuhu wuxuu kula dardaarmay kuna bogaadiyay dhammaanba wasiirada iyo mas'uuliyiinta hay'adaha madaxa bannaan taliyayaasha qaranka sidii qiimaha iyo sharafta lahayd ay ula soo shaqeeyeen muddadii uu xilka hayay madaxweynuhu wuxuu sheegay inuu ilaahay ku asturay kuna karaameeyay isla markaana aanu ku khasaarin inuu u cugto ragga mas'uuliyiinta maanta hortiisa fadhiyay inay xilka qaran hayaan dhinaca kale iyaguna waxaa hadlay wasiirro doora iyo mas'uuliyiinta kale hay'adaha madaxa bannaan waxaana madaxweynaha uga mahadnaqeen karaamadii iyo mas'uuliyaddii uu magaranaysa u igmaday way u duceeyeen waxaana sheegeen in taariikhdu ay qori doonto guud ahaanba nuxurka kalfadhiga aan caadiga ahayn ee madaxweynuhu isugu yeeray maanta oo kaasoo ah kalfadhigii ugu dambeeyay iyadoo xil wareejinta rasmigeena ay dhici doonto 13 bisha 12 halkan madaxtooyada ay ka dhici doonto lana soo casuumay mas'uuliyiinta qaranka ugu mudan haldoorka ummadda jamhuuriyadda Soomaaliland rag iyo haweenba wadamada aynu saaxiibkana dariska dhammaanba wadamada Soomaaliland ka taageera dimuqraadiyadda iyo geedi socodka doorashooyinka ilaa dad 500 oo qof ka badan ayaa magaranaysa halkan lagu casuumi doona hadii la yiraahdo Siciid Aadan Jaamac Home Cable TV aqalka madaxtooyada Soomaaliland